aamusnaantu waa meesha keliya ee laga helo xasiloonida ama yacni deganaanshiyaha. Nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuuna barayaa in haddii hadalka uusan khayr lahayn aamusnaanta ay ka khayr badan tahay. Man kaana yu'minu billaahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut. Nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay qofkii rumeeyey Allah subxaanahu wa tacaala iyo maalinta aakhiro ha ku hadlo hadal khayr ah ama yacni iska aamuso. aamusnaantu waxay ka badbaadisaa qaladaadka carabka sida xanta, beenta iyo hadalka yacni qofka kala dhaawici kara. Cali bin Abi Taalib radiyallahu canhu wuxuu lahaa hadal aad u cajiib ah oo isku xireeya caqliga iyo hadalka. idaa tama alcaqlu naqsa alkalaamu. markuu caqliga dhammaystirmo hadalku wuu yaraadaa. qofka caqliga badan ma luminayo waqti uu ku doodo wax aan macno lahayn. marka diyaar hadasho kelmad kasta oo afkaaga ka soo baxda waxay yeelanaysaa miisaan iyo qiimo weyn. aamusnaantu waxay ku siinaysaa fursad aad wax ku dhegaysato dadkan aad ku barato adigoon sirtaada aadan bixinin. aamusnaantu waa hubka ugu awoodda badan ee aad ku wajihi karto doqonnimada ama yacni xaaladaha kugu adag. taasi macnaheeda ma ahan in laga adkaaday oo inaad naftaada aad kontrolshay oo aad xakamaysay oo aad celisay. asalaamu calaykum.